Degmo yar oo ku taalay bartamaha Romania, taasoo gabi ahaanba ahaan jirtay nabad, ayaa waxaa ku bilowday dhibaatooyin iyo sidoo kale dilal aad u arxan daran. Waxaa aad u soo badatay inay dadka degmada ku soo kacayeen qof markaasi la dilay oo wadada la iskaga soo tuuray markaasi si uu qof kasta u arko. Arrinta naxdinta leh waxay ahayd qof kastoo meyd ah surkiisa waxaa ku taalay qaniinyo, sidoo kalena jirkooda, gacmahooda iyo lugahooda waa laga gogoyn jiray. Markaasna dadku aad ayay uga naxeen, ayagoo la yaaban qofkee ama waxee awooda inuu geysto dilalkan aadka u daran. Sidaas ayay ahayd ilaa habeen roob badan da'ayay kadib meyd la helay, agtiisana markaasi laga helay raad kaasoo kaliyaata lagu qeexi karo inay lahaayeen wax bahal oo aan bini'aadan ahayn. Hadalkaasi si degdeg ah ayuu u faafay, dadkii degmadana waxay soo urursadeen hub, sidoo kalena dabab ayay shiteen ayagoo dabagelaya raadka oo raba inay helaan bahalka meesha uu galay. Waqtiga si degdeg ah ayuu ku dhaafay. Arrinta la yaab kalena waxay ahayd inuu raadkii si toos ah u geeyay guri uu professorka degnaa, kaasoo degmada ka baxsanaa. Professorka waxaa yaqaanay dad dhif ah, saas darteedna dad badan ayaa ka cabsan jiray isaga. Dadkii xanaaqsanaa albaabka ayay soo jabiyeen, kadibna waxaa ka soo horbaxay bahal aad u weyn oo fool xun, kaasoo markaasi hurday oona ku dhex jiray bokis alwaax ka samaysnaa. Professorkii oo qayladooda ku soo kacay ayaa banaanka u soo baxay, wuxuuna arkay dadkii oo hub wata una kulul dhiiga bahalka. Marar badan ayuu baryootamay, balse hadalkiisa waxaa qariyay dadka tirada badan, kuwaasoo markaasi gurigiisa isku soo gurayay. Dadkii markaasi waxay wadnaha ka geliyeen qori alwaaxa, kaasoo isla markiiba bahalkii wadnihiisa kala gooyay. Dadkii way degeen, ugu dambeyn waxay maqleen professorka hadalkiisa, kaasoo iska bedelay inuu ahaa amar, iskuna bedelay caro. Professorkii wuxuu u sharxay in meydadkii ay helayeen inay sabab ku lahaayeen bahalada habeenkii, kuwaasoo ahaa Dracula dadkiisii, kaasoo markaasi lagu amray inay dhiiga ka cabaan dadka meesha si ay u badiyaan iyaga tiradooda. Bahalkii ay dileen wuxuu ahaa mid laga sameeyay dhiiga bini'aadanka iyo gorillaha oo la isku daray, kaasoo markaasi loogu talagalay inuu la dagaalamo bahaladan dadka dhiiga ka cabayay. Haddii ay dadku u dayn lahaayeen bahalka inuu noolaado muddo yar gudaheed, wuxuu ka dhammayn lahaa vampire-radoo dhan, kaasoo markaasi nabaddii u soo celin lahayd. Dadkuna waxay awoodi lahaayeen inay si nabada habeenkii waddada ku maraan. Si kadisa hal mar qaylada kumanaan bahal ayaa iskabsatay, kuwaasoo markaasi dareemay in bahalkii iyaga khatarta ku ahaa uu dhintay. Markaasna waxay diyaar u ahaayeen inay soo weeraraan dadka degmada, kuwaanoo markaani si fudud ay ku dili karaan ayagoon waxba ka celinaynin. Doqomo yahow ayuu ku qaylay professorkii, maadaama aad disheen bahalkaygii, annagoo dhan ayaad markaasi na wada disheen.